Sirdoonka dowladaha Itoobiya iyo Somalia ayaa shirkadana Axmed Madoobe ku yeeshay magaalada Baydhabo. Shirkan ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda deegaanada Jubbaland iyo sidii meesha looga saari lahaa maamulka uu hogaamiye Axmed Madoobe ee weli ka arrimaya qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay laba generaal oo ka tirsan ciidamada Itoobiya kuwaas oo kala ah taliyaha ciidamada gobolada bari ee Itoobiya iyo taliyaha hoggaanka howlgelinta ciidamada Itoobiya oo aan safar hore loo sii shaacin ku tagay deegaanada Koonfur Galbeed. sida aynu ka helay ila ku agdhow generaaladaas waxaa la sheegay in generaaladu ay u yimaadeen magaalada Baydhabo sidii dowladda Soomaaliya ay uga gacan siin lahayd riditaanka Axmed Madoobe iyo in meesha laga saaro. generaalada waxaa kulanka la qaatay Cabdullaahi Kulane oo loo yaqaano Jiisma Reexaan iyo sidoo kale Cabdirasaaq Maxamuud Xaaji Maxamuud oo ah gaasimaha waaxda howlgelinta gaarka ee Niisa. ajendaha kulanka ayaa waxa uu ahaa mid la doonayo in lagu xoreeyo degmada Buale ee caasimada dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga labada dhinac ay ugu jiraan in meesha laga saaro maamulka Axmed Madoobe. dowladda Itoobiya ayaa horay u qaaday tillaabooyin ay uga soo horjeedo Axmed Madoobe inkastoo aysan guuleysan, waxaana iminka sii badanaya cadaadiska kaga imaanaya beesha caalamka Axmed Madoobe. Sirdoonka Soomaaliya oo horay ciidamada sida gaarka ugu tababaran u taadgureeyay gobolka Gedo ayaa weli u muuqday inay si laba jibaarayaan howlgallada ka dhanka meelaha Axmed Madoobe uu ka arrimiyay Jubbooyinka iyagoo sidoo kale tan doonaya inay gacanta ku dhigaan caasimada dowlad goboleedka Jubbaland ee Buale. sida qorshuhu yahay Sirdoonka Soomaaliya waxa ay doonayaan iskaashi buuxa oo ka helaan dhanka Itoobiya oo iyadu ka tirsan ciidamada amisom ciidamo badan ay ka joogaan gudaha Soomaaliya. saraakiisha ka socda Niisa ayaa kuwa si toos ah wakiil uga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxayna isla falanqeeyeen generaalada ka socday wadanka Itoobiya iyo sidoo kale saraakiisha Sirdoonka Soomaaliya sidii meesha looga saari lahaa rejiimka Axmed Madoobe sida hadalka u dhigeen. ila ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay shirku saacado badan qaatay isla markaasna uu ahaa mid lagu falanqeeyo xaaladda siyaasadeed iyo guud ahaanba sida dhinacyadu ay iskaga kaashanayaan arrinta deegaanada Jubbaland loona wajahayo. dowladda ayaa doonaysa inay gacanta ku dhigto Buale halkaasna ay doorasho ku qabato taas oo Axmed Madoobe ka dhana meeshana looga saarayo si xildhibaanada soo socda doorashada soo aadan ay uga soo baxaan magaalada Buale oo caasimada rasmiga ee dowlad goboleedka Jubbaland ah. Axmed Madoobe ayaa dhowr jeer shaaciyay inuu xoreyn doono Buale inkastoo uu ku fashilmay. doorashooyinka ka dhacay Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayay dowladda Soomaaliya gul wax ka hor ka soo gaartay, waxaana iminka muuqata inay si rasmi ah u rajaynayso in Axmed Madoobe meesha laga saaro ka hor doorashada Soomaaliya. saraakiil ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sheegay in dhinacyadu ay isku afkarteen tillaabooyinka ay ka wada hadleen ayna wajihi doonaan dadaalo ka dhana sidii loo qabsan lahaa Buale iyo siyaasado iyo sidoo kale khibrado sida la isku weydaarsan lahaa taas oo Axmed Madoobe lagu cadaadinayo si meesha uga baxo. lama oga waqtiga rasmiga ee ciidamadu ay qaadayaan howlgalka ka dhanka al-shabaab ee Buale lagu xoreynayo iyo sidoo kale qorshaha ka dhanka Axmed Madoobe xilli ku bilaabanaya, balse dhinacyada kala duwan ee sirdoonada Itoobiya iyo Soomaaliya waxa la sheegay inay isku afarteen tillaabooyin muhiim u ah dowladda Soomaaliya taas oo ay ku doonayso sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa Buale iyo sidii Axmed Madoobe meesha looga saari lahaa loona keeni lahaa shakhsi kale oo filad Soomaaliya taageersan. dadaalo hore loo sameeyay oo lagu dhexdhexaadin lahaa Axmed Madoobe iyo madaxda dowladda Soomaaliya ayaa gabi ahaanba noqday mid fashilmay kaas oo ka dhigay dowladda Soomaaliya inay sii wado dadaalada Axmed Madoobe ay ku doonayso inay kaga taqalusto. beesha caalamka ayaa dhowr jeer iyadu hore u sheegtay inaysan aqoonsan doonin maamulka Axmed Madoobe maadaama uusan shifo sharciya ku soo bixin. kulankan ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee si heersara loo soo agaasimo kana dhaca gudaha Soomaaliya oo ay yeeshaan saraakiisha sirdoonka Itoobiya iyo sidoo kale kuwa sirdoonka Soomaaliya taas oo ahayd mid lagu falanqeynayay xaaladda iyo sidoo kale marxaladda taagan ee Jubbaland iyo sidii dhinacyadu ay iskaga kaashan lahaayeen.
itoobiya ayaa saaxiib dowlaha xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo taasoo keentay in dhinacyada kala duwan ay iskaashiyo muujiyaan sanadihii ugu dambeeyay